deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa degan kadib markii 11kii bishan dagaal qasaare lagu gaarsiiyay ciidamadii sida sharci darrada ah uu ku geeyay eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhacay deegaanka. ciidamada dawladda Jubbaland ayaa xaafadaha Raaskambooni ka sameeyay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanka, goobaha ganacsi, waxbarashada iyo guud ahaan isku socodka deegaanka Raaskambooni ayaa si caadi ah ku soo noqday kadib markii shacabka deegaankaasi ay dareemeen neecawda dawladnimo. shacabka degan deegaanka Raaskambooni ayaa si diiran u soo dhaweeyay halyeeyada dawladda Jubbaland ee ka dulqaaday ciidamadii dhibaatada ku haya shacabka. bulshada deegaanka Raaskambooni ayaa maalmo kooban wajahaya culeysyo kala duwan oo kaga imanaya ciidamadii eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud uu geeyay Kambooni, kuwaas oo shacabka u geystay dhac, kufsi iyo arrimo kale oo ay halis geliyeen naftooda. ciidamada dawladda Jubbaland ayaa shacabka deegaanka Raaskambooni mar kale dareensiiyay macaanka dawladnimo, iyagoona goob fagaaro ah ugu sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin shacabka kana ilaalin doonaan kuwa doonaya dhibaataynta naftooda. dhibaato Xasan Sheekh Maxamuud xaqiisa nooga timi burburka ku dhacay, siyaasadan baa isqalaaftay. waxaan raadinaynaa ragga naga tagay iyo ragga noo jooga inay xal isugu imaadaan oo gogol nabadeed loo fidiyo. raggeena xabad uma rabno. Haina kitu, bahari ndafungika, watu enenda hurudi sababu wamejarifa utoankuku. Tabu kula shida hiyo. Kama mtaweza kutusaidia, Jubbaland, Muhammad Islam juu. Muhammad Islam juu. shacab haystay nabad isla markaana dareemaya neecawda dawladnimo ee Jubbaland ayaa maalmo kooban dareemay culeysyo naftooda halis geliyay oo uu soo abaabulay eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud. xasan yuusuf maxamed shafadyare, raadiyaha iyo telefishinka dawladda Jubbaland.